haddii aad qof aad u xanaaq badan muuqaalkani waa kaagii fadlan daawo. wiilkani yarka oo ah wiil aad u xanaaq badan oo carab badan wax walbana ka xanaaqiisuna uu yahay mid fudud waxa cashir baraya aabihiisa kaas oo ka yaaban xanaaqa saa'idka wiilkiisu qabo wuxuuna doonayaa in si aqliyaysan wiilkiisu wax fahamsiiyo maalin walba la yaabo wiilkiisu careysan isagoo marnaba aan laga yaabin in la arko isagoo faraxsan. aabaha ayaa mid aad u xigmad badan wuxuu leeyahay keen maantay cashir ayaan ku barayaa waxaan doonayaa inaad ka suuliyo caradani. aabaha wuxuu soo qabanayaa masaamiir wuxuuna u dhiibayaa burus wuxuu leeyahay masaamiirtani iyo dubahani qaado alwaxaasna ku kawi oo shaqadan qaba ayuu leeyahay. wiilku wuxuu u maleeyaa shaqo uu aabihiisu dirsaday mana u maleeyo inay tahay mid cashir lagu barayo. shaqadii ayuu qabanayaa alwaxaas aad u jeedaan dhirka badan ayuu wada dhejinayaa. wiilka aad buu daalan yahay mar walbana wuxuu xasuusanayaa xanaaqii tirada badnaa ee mar walba uu sameynayay. walaalkiis ka weyn oo mararka qaar aad ugu xanaaqaya aabihiisu uu ku xanaaqayo markuu daalaba xasuus ayuu galayaa. wiilku yarka ixtiraam ma lahan aad u xanaaq badan yahay laakiin maantay cashir uu la yaabo ayaa la barayaa si aqliyaysan ayaa wax loo fahansiinayaa. qofka inta dil iyo waxa wanaagsaneeda wax ku fahansiin lahayd waxa wanaagsan adigoo si aqliyaysan wax fahansiiya. wiilka yarka wuxuu leeyahay aabo waan dhamay shaqadii balka la soo aragtaan u qabta shaqadii. aabihi ayaa dhahaya shaqo fiican ayaad qabatay laakiin waxaan doonayaa inaad haddana dib shaqadii ku noqoto oo aad bixiso masaamiirta meesha ku dhajiday. wiilkii asagoo la yaaban ayuu shaqadii qabanayaa una la yaaban yahay sababta haddana shaqadiisii dib loogu celiyay ay tahay joogaya bartaada joog shaqadii qabatana dib u soo bilow hadda. wiilkii shaqada ayuu qabanayaa masaamiirtii uu ku dhajiyay ayuu ka soo bixinayaa mid walba waxaa leeyahay waa fiican tahay bal eeg ayaa la leeyahay alwaaxda maxaad kaga jeedaa. wiilka yarka wuxuu leeyahay dulduleelo fara badan yaan kaga jeedaa. wuxuu leeyahay taasi waxaa la mid ah mar walba aad xanaaqdo qalbigaaga waxaa gaaraya dhaawac taas oo mar walba oo sii siyaado xanaaqaagu uu siyaadayo dhaawacyadaada waana dhib weyn adiga kugu ah. sidoo kale waxaynu xasuusanaa xadiiskii nebiga sallallahu calayhi wasallam uu ninka u imaanayo ku leeyahay nebiga allow ii dardaaran. nebiguna sallallahu calayhi wasallam uu ku leeyahay 3 mar hacaroon. taasi meesha wax naga tusaysaa dhibaatada ay leedahay xanaaqa faraha badani. geesiga saxdaana waxaa lagu sheegay inuu yahay qofka qariya caraydiisa oo aan dadka tusin. wiilkii cashir wanaagsan ayuu qaatay aabihii ayuuna u hambaliyeeyey.